عايشة حسين علي waxaa dhigtaa jaamacadda Banaadir waxaana ahay sanadkii ugu dambeeyay ee maaragtay waxbarashadeedkayga bachelor degree inta kadib faa'iidooyinka gabdhaha waxbarashada ee u leedahay dabcan hadii la dhaho waxay faa'iido u leedahay dumarka ama guud ahaan ee gabdhaha way badan tahay balse waxa kamid ah gabadha markii ay wax barato waxay kala garataa xumaanta ama samaanta taasoo ay kala jeedo gabadha markii ay wax barato yacni waxay kala garanaysaa waxyaabaha nafteeda anfacaya ama waxyaabaha nafsadeeda mas'uulka yacni munaasabka ku ah iyo waxyaabaha kaleeto sidoo kaleeto gabadha markii ay wax barato waxay faa'iido u leedahay ama waxtar badan ee u leedahay nafteeda marka koowaad nafteeda anfacda marka labaadna waxay anfacdaa familkeeda marka saddexaadna waxay anfacdaa bulshadeeda oo waxay noqotaa gabar ka qayb qaadato horumarka iyo maaragtay dib u dhiska maaragtay bulshadeeda sidoo kale gabdhaha faa'iidooyinka waxbarashada ee u leedahay waxa kamid ah gabadha markii ay wax barato waxay noqotaa gabar hami iyo hiigsis ay daneynaya barashada kombiyuutarka laabka iyo ku hadalka luqadaha Ingiriiska Heritage Academic waxa uu ku hayaa koorsooyinka kala ah Active Director the Human Service Computer Communication Networking American English koorsooyinkaasi waxa ay soconayaan muddo dhan 3 bilood halkan waa Heritage Academic sida aad u jeedaan systemka cusub ee sanadkan ayaa halkan ku yaala waad u jeedaan goobta aan fadhiyo sida ay u qurxan tahay adiga kaliya ayaa ku raaxaysanaya kombiyuutarkaada Heritage Academic waa academic diyaarinaya arday khibradooda aad loo diyaarinayo sidoo kale iskuulka waxa uu diyaar ku leeyahay practical joogto ah oo loogu talagalay ardayda baranaysa koorsooyinka aan kor ku soo xusnay qodobkayga dardaaranka wuxuu yahay dhamaan gabdhaha meel ay joogan gabdhaha Soomaaliyeed meel oo bay joogan waxa ku dardaarmayaa in maaragtay waxbarashada ay ku dadaalaan ay noqdaan gabdho wax bartay kaliya maaragtay san ku ekaan waxbarashada ay noqdaan gabdho maaragtay loo yaqaan proactive ama gabdho wax soo saar leh bulshadii iyo maaragtay dhamaan waalidiintii iyo familkoodii ku celsho sidoo kale dhamaan waalidiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogan waxa kula dardaarmayaa in maaragtay gabdhaha ay dhiirigeliyaan waxbarista iyo maaragtay hankii maaragtay si yaani hanka gabdhaha uu sare kaco dhamaan aabayaashii gabdhaha Soomaaliyeed waxa kula dardaarmayaa in maaragtay waxbarashada ay kula dadaalaan ka weynaata amaankeedu wuxuu ka koraa in maaragtay waxyaabo nafsadeeda aan u qalmin ama waxyaabo nafsadeeda aan munaasab ku ahayn ay damacdo dabcan Soomaaliyeed hore ay u dhahday gabar wax baratay waa bulsho wax baratay halahaas aan ku soo gabagabeynaya assalaamu calaykum